بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان umada Soomaaliyeed waa salaamaya. Mar kale waxaan salaamayaa beesha leelkase. Halkan waxa idinku soo gudbi doonaa haddii Allah wada raali ka ahaado war murtiyeed ka soo baxay shirweyne beesha leelkase u dhaxeeyay ee ay kaga arrinsanayso gobolka Mudug kowdii bisha 7 ilaa 27 bishan oo shalay ahayd. War murtiyeedka ayaan idin akhrinayaa haddii Allah wada raali ka ahaado. Ujeedo aan ku bilaabay taariikh 27 July 2025 ama 27 bisha 7 2025 gaalkacyo. Ujeedo shirka samata bixinta Mudug shirar si gaar ah iyo si isdaba joog ah uga socday waxgaradka beesha leelkase dal iyo dibadba gobolka Mudug muddadii u dhaxaysay 1 ilaa 27 bishan July ama bisha 7 2025 laguna falanqeynayay xaaladda gobolka ee siyaasadeed amni dhaqaale nabadeed deegaameed iyo maamul ayaa si tafatiran looga dooday arrimaha soo socda. kow xal u raadinta dhibaatooyinka amni darro ee ka jira gobolka. labo baahida loo qabo si nabad waarta looga dhex abuuro beelaha wadadega gobolka Mudug. saddex gobolka oo uusan ka jirin guddi ama gole madax bannaan oo ka shaqeeya nabadeynta cadaaladda iyo maamul wanaagga. afar siyaasadaha wiiqaya midnimada wadajirka dadweynaha iyo isku dhufsashada beelaha oo ku baahday gobolka Mudug. shan isku koobidda xaq isu siinta maamulka hay'adaha dawliga ah iyo siyaasadda gobolka. lix baahida loo qabo in gobolka loo horseedo isbeddel siyaasadeed oo ku dhisan maamul wanaag cadaalad iyo waxqaybsi dhab ah oo ka turjumi kara aragtida dadweynaha loona dhisi lahaa maamul ay wada leeyihiin aynu wada dhistaan. toddobo isa siinta iibsashada xalaalsiga iyo ku tagrifalidda hantida maguurtada ah ee ka dhaxaysay dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka degan. sideed burburinta go'doominta degmooyinka qaarkood iyo dhisidda degmooyin cusub oo nidaamka dawladnimo aan waafaqsanayn. ugu dambayn markii aad loo falanqeeyay doodo dhaadheerna laga yeeshay qodobadaas kor ku xusan ayaa markay arkeen garowsadeen waxgaradkii shirka isugu yimid go'aamiyeen dhismaha gole ka samata bixiyo gobolka dhibaatooyinkan hareeyay ayna u bixiyeen golaha samata bixinta Mudug oo loo soo gaabiyo GSM. shirku wuxuu doortay xubnihii golaha fulinta oo kala ah kow Maxamed Cabdille Cumar gudoomiyaha golaha. labo Cabdiweli Daahir Xuseen gudoomiye ku-xigeenka golaha. saddex Axmed Nuur Maxamed Suufi afhayeenka. afar Cabdinaasir Ashkir Muuse xoghayaha. shan Cabdikaafi Sheekh Yuusuf xiriirka caalamiga ah. lix Luqmaan Cabdiraxmaan Guuleed maaliyadda. toddoba Cabdirashiid Cabdi Xaashi ku-xigeen maaliyadeed. sideed Cabdirisaaq Faarax Cali xubin. sagaal Cabdullaahi Yuusuf Axmed xubin. toban Cabdiweli Aadan Ducaale xubin. 11 Cabdiweli Xuseen Warfaa xubin. 12 Cabdul Macalin Maxamed Muuse xubin. 13 Axmed Faarax Aadan xubin. 14 Faarax Maxamed Axmed xubin. 15 Faysal Gaani Xaashi xubin. 16 Jaamac Yuusuf Xaaji xubin. 17 Mahdi Cabdullaahi Daymare xubin. 18 Nabadoon Maxamed Xuseen Cabdille xubin. 19 Nabadoon Siciid Cabdinuur Muuse Xoosh xubin. 20 nabadoon Cabdiraxiin Ismaan Aadan xubin
كوبي لباتن إسماعيل تهليل عيسى حبن لبي لباتن مختار عبد الله شيخ حسن حبن waxaa saxiixay xoghayaha iyo dhammaan guddiga intaasuna ku eegaya war mugtiyadu